ku arkay social media mana ogid waxaana la wada ogsoon yahay dawladda iyo shacab in karantiilku uu yahay isbitaal Martini arrimaha ka hortagga coronavirus-ka loogu diyaar garoobay garoonka Saadi Muqdisho boqolaal ciidan booliis ka ah ayaa dhex degan oo qayb ka ah amniga guud ee garoonka sidoo kale boqolaal dhalinyaro ah ayaa Soomaaliyeed ayaa howlo dayactir ka wada ayaga naf male miya waxaa jooga ajaanib mana ahayn goob la isku og yahay oo guddigii loo xil saaray arrimahaas ama wasaaradii ama hay'adii kale oo dawladda iyo gobolka Banaadir intaba marka waa arrin iska mufaaja'a ah laakiin mas'uuliyadda faraysa inaan si guud taxadir looga sameeyo laakiin meelaha u banaan ayaa jira oo badan dawladdu waa awooddaasana banaynaysa meelaha kale annaga nalama dhigin xitaa hakiya howlaha dayactirka ciidankaas la keenayo meel kale ku habboon waa loo heli karaa marka taasaa kadisna ku ahayd waxaad aragtana waa intaasana anaguna cadeynayna wasaaradda ahaan mas-uuliyiin maamulka gobolka ka tirsan iyo sidoo kale agaasimihii dhismaha ama dayactirka wadooyinka iyo saraakiil kale ayaa tegay meesha kulleybana waa mas-uuliyiin ka tirsan dawladda go'aanka tigitaanka garoonka ah ee mas-uuliyiintaas ay tageen marka hore adigu kama warqabin miya waa cadeeyay inaan ka warqabin nalkuuna soo wargelinin taas waa waxaan sheegay mas-uuliyadda nafaraysa marka inaan hadda wixii ka socda horta waxa la rabaa in la hakiyo dayactiraad socday howlaha socda marka nalkuma wargelininba waa gartay marka waaye maxay tahay talaabta aad qaadaysaan haddii mas-uuliyiintii dawladda qaarkood gaar ahaan maamulka gobolka uu leeyahay dadaa lagu karantiilaya oo ciidamo Jabuuti laga keenayo adiguna aad leedahay maxay tahay talaabta xigta way soo baxaysaa insha Allah la iskaba yeelayo xadgudub waxa fiican shaqooyinka xitaa in la isku ixtiraamo Soomaa ama